بسم الله الرحمن الرحيم موقالكن waxaan idinku soo gudbin doonaa arin asaasi ah taasoo ah in nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee aan weligii cunin hilibka bakaylaha haddaba muuqaalkeena ayaad kaga bogan doontaan haddii Allah weyn uu ogolaado waxa jira waxyaabo badan oo alle naga xarimay cunidooda sida uu inoo sheegay Allah weyn oo wuxuu yiri بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله صدق الله العظيم waxaa la idinka xarimay baqtiga dhiiga hilibka doofaarka iyo wixii lagu xuso ama lagu gowraco waxaan magaa ilaahay ahayn waxaa la idinka xarimay tii la ceejiyo iyo tan la ganac gooyo iyo tan meel ku soo dhacda iyo tii la hardiyo iyo miduu cunay bahal waxaad gowractaan mooyee waxaa kaloo reeban wixii lagu gowraco sanam iyo inaad ku nasiib doonataan ama aad faalsataan kaasi waa fisqi ayuu leeyahay Allah weyn iyadoo oo ay jirto in bakayluhu uu yahay xayawaan banaan cunidiisa ayaa haddana aan weligii cunin nabi Muhammad intuu noolaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba waa maxay sababta ka dambaysa arintaasi rasuulkeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa laga soo wariyay isaga iyo koox asxaabta kamid ah in loo keenay hilib bakayle kadibna uu nabigu iska diiday inuu cuno halka asxaabta kalena ay cuneen mid kamid ah dadka meesha fadhiyay ayaa weydiiyay maxaa dhacay rasuul allow ma xaraam ba markaasuu yiri nabiga calayhi salaam maya balse bakayluhu wuu xeeshaa oo uu ula jeeday inay u timaado caado ama dhiig sidaa darteedna ayaan u cuni waayay ayuu yiri nabiga calayhi salaam balse waa xalaal waadna cuni kartaan sida la cadeeyay bakayluhu wuxuu kala mid yahay aadamaha marka loo fiiriyo dareenka dhaqanka iyo dabeecadaha qaar ee uu leeyahay sababtu rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee uu diidayna waxay ahayd inuu nabigu u ahaa nin naxariis badan maadaama bakayluhu uu shabahu basharka gaar ahaan naagaha waxaan filayaa inaad wax badan kaga bogateen muuqaalkan ama aad wax badan ka ogaateen sababta uu nabi Muhammad naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee uu u cuni waayay hilibka bakaylaha intaynu dib uga kulmi doono muuqaalka xiga waa anigoo Yuusuf Xuseen Saabuunow ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaano Allah